halkani waa masjidka Majmacul Culuum ee degmada Daarusalaam xaafadda Xolaqalka ayaa maanta soo gaaray culimo u diin Soomaaliyeed ayagoona ugu baaqay dadka muxsiniinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka. ugu horeynta ayaa ka hadlay Sheekh Abuukar Xasan Maalin asigoona ugu baaqay dadka muxsiniinta inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka. walaalayaal halkan aanu taaganahay waa degmada Daarusalaam gaar ahaan agagaarka Xolaqalka waxaanu taaganahay masjidka la yiraahdo Majmacul Culuum ee ku yaala degmada Daarusalaam gaar ahaan agagaarka Xolaqalka. masaajidkan walaalayaal sida aad arkaysaan waa masaajid hadda maraya heerkii shubka waxaa laga soo gudbay qaybtii hoose waxa uu marayaa shubka. masaajidkan waa masaajid ballaaran marti geliya dad badan ee dalabatul cilmi ah ka soo kala jeeda gobollada Soomaaliya in badan oo kamid ah ay ka soo xareysteen iyo magaalada Muqdisho gudaheedaba. waa masaajid laga faafiyo diinta iyo dacwada iyo khayrka laga faafiyo ilaahina lagu caabudo. aanu rajaynayno insha Allah taala ila qiyaam saaca inuu taagnaado oo nuurka iyo cibaadada iyo khayrku ay ka sii socdaan. baahida hadda masaajidka walaalayaal taagan loo baahan yahay waa shamiitadii masaajidka lagu shubi lahaa iyo jaygii caradii birtii iyo sidaas oo kale qarashkii shaqaalaha la siin lahaa. qodobadaas ayaa hadda ugu muhiimsan. saas awgeed waxaan ugu baaqaynaa walaalaha ina daawanaya kuwa ina dhageysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay ka faa'iideystaan una faa'iideeyaan fursadan qaaliga ah. faa'iidooyinka aanu ka helayno walaalayaal waxaa ugu weyn maxabbatullah ilaahay jacaylkiisa ugu weyn. haddaan masaajidkan Majmacul Culuum aanu soo gacan siino waxaa ugu weyn maxabbatullah ilaahay subxaanahu wa tacaala jacaylkiisa sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin. ixsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay kuwa ixsaanka sameeya. faa'iidada kale aad ka helayso haddaad masaajidkan Majmacul Culuum aad soo taageerto waxa weeye in ilaahay deeqaaga iyo maalkaaga ilaahay uu ku barakaynayo sida ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuh wa huwa khayru raasiqiin. waxaad bixisaan ilaaha beddelkiisa idin siinaya. waxaad kalood ka heli guri in ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada uu kaaga dhiso masaajidka haddaad taakulayso sida nabigeenu yidhi sala allahu wasallam mubaaraka calayhi man banaa masjidan lilaahi bana allaahu lahu beytan fi ljanna. qofkii ilaahay dartii masaajid u dhisa guri ayaa ilaahay jannada uga dhisaa. maalkan walaalayaal waanu ka dhimanaynaa waxaanu noolaanayno waa maalmo kooban. sidaas awgeed waxaan rajaynaynaa masaajidkan Majmacul Culuum ee deegaanka Daarusalaam gaar ahaan Xolaqalka dhinaciisa bari ku yaala qorax soo bax dhinaceeda ku yaala inaad si fudud iyo waqtiga ugu dhow aad uga soo jawaabi doontaan. waanu arki doonno insha Allah taala isagoo la furayo oo ilaahay bifadlihi wa ihsaanihi uu noo dhameystiray. muxsiniinta markaanu ka faa'iideysano fursadda qaaliga. hada billahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. masjidkan sida muxsiniinta intooda badan ay ka warqabaan wuxuu ku dhismay oo ku bilaawday gacantoodii. waa shilimaad ama ha yaraada ama ha badnaada isku dardarsadeen dad muxsiniin ah ayuu ku bilaawday. heerka hadda uu joogo oo dadka dhammaan ay u wada jeedaan wuxuu ku soo gaaray muxsiniinta ayuu ku soo gaaray sababkooda ku soo gaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo fuudeeyay. waxaan rabnaa dadkii bilaabay oo wax ku darsaday iyo in kaleba inaan haddana u soo bandhigno baahida masjidka ka jirto sida sheekhu uu noo wada sheegay. baahida masjidka ka jirta aad iyo aad u fara badan tahay. masjid bilow ah oo heerka hadda aad u jeediin joogo waxa uu baahan yahay oo dhan u wada baahan yahay. laakiin waxaa noogu daran waxyaabaha hadda baahidooda taagan waxaa ka mid ah shamiintada oo ilaa 1200 kiish meelahaasoo kale inta lagu qiyaasay waa ka badan kartaa waana ka yaraa kartaa laakiin 1200 oo kiish ayaa lagu qiyaasay inta qaybta kore noo geli doonto. waxaa sidaas oo kale waxyaabaha aad loogu baahi badan yahay kamid ah bir
oo birta shubka ah oo cadadeeda ayadana lagu sheegay 160 kintaal oo bir ah ayadoo waxa waaye nambaradeeda kala duwan tahay laakiin magaca guud waa 160 kintaal waaye waxaa sidaas oo kale inta loo baahan yahay oo baahida hadda ugu xoogan oo sii taagan ka mid ah jayga lagu shubi lahaay iyo sidaas oo kale inta caradii oo ayadan aan ka hareenin waxyaabahaas hadda aan sheegnay waa jayga ilaa waxa lagu qiyaasay 8 oo lowrkan waxa waaye ma aragtay weyn oo sigiska la yiraahdo caradana sidaas oo kale ayaday kaaga dhowdahay oo jaygu kaaga dhow yahay waa ilaa 6 waxa waaye sigis meelahaas oo kale waa ala sabiil qiyaas waaye waa inay ka badatana waa suuragal inay ka yaraatana waa suuragal waxad engineer oo noo sheegayna ma ahan laakiin sida carabka u bataya intaas ah waxaan rajaynaynaa insha Allah taala baahiyo kale intan way jiraan oo maalinta shaqada la qabanayo oo kamid tahay maanadoobarada kamid tahay oo baahi weyn oo hadda taagan ayadana waxa waaye ma aragtay culeyskeeda leh oo waliba waxa waaye ma aragtay laga yaabo in ma aragtay oo laga yaabo waxyaabaha kale xataa hadii la helo in maanadoobarada kaliya masjidka waxa waaye u taagnaado marka haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala sida muxsiniinta aan ugu baranay maalinta ugu horeysay oo koobaad oo aan bilawnay dhulka inaga soo qaadeen ilaa heer kale jooga hadda ay keeneen waxaan ugu baranay in waxa waaye baaqa culimada mar walba ay soo jeediyaan inay ajiibaan oo aqbalaan insha Allah taala ninkii asaga haayo oo jaabkiisa ka bixinayo waxa waaye insha Allah taala asaga ayaa fadli iyo khayr ku helay sida sheekha uu noo sheegay ninka asaga aan haynin oo jaabkiisa aan ku jirin laakiin jaahiis wax lagu heli karane waxaan rajaynaynaa insha Allah taala qof Allah qofkii oo warka maqlay in waxa waaye jaahiis wax ugu raadiyo oo jaahiis wax ugu keeno insha Allah taala duu Ilaahay yiraahdo asagoo dhaqan gelinayo ku amal falay xadiiska nabigeena sallallahu wa salaamu alayhi ad-dallu ala al-khayr ka faa'ilihi oo yiraahdo nabigeena sallallahu wa salaamu alayhi qofka khayr tusiyay wuxuu la mid yahay asagoo sameeyay oo kale intuu la mid yahay marka muxsiniintana waxay wada og yihiin dhamaan masjidkan masaajidda kale wuxuu ugu duwan yahay dalabatul ilmi oo waxa jira masjidka u xayiran oo waxa waaye ma artay marka hore wuxuu ahay goob waxbarasho ayuu ahay ragii waxa waaye marka hore lagu bilaabay masjidka markii hore la dhisay dhismihiisa hore ragii lagu bilaabay ayaa hadda wax ku aqriyo oo masjidka dhexdiisa wax ku aqriyo insha Allah taala marka waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala baaqa muxsiniinta aan u dirnay inay soo jawaabaan haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah taala hada billahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka khayr Allah idin siiyo insha Allah taala sida mashaayikhdeena ay noo sheegeen masaajidkan khayr Allah siiyo dadka muxsiniinta ee wax ku baxsaday ee hore u soo bixiyay khayraadka ay bixiyaan waa kan maanta uu muuqdaa meesha uu marayo nin walba muxsin uu arkaya dhaqaalihii uu bixiyay iyo khayraadkii uu ku bixiyay inuu san khasaarin oo Ilaahay agtiisa wax weyn uu dhigtay qof walba indhihiisa ku arkaya Ilaahay subhanahu qaadirka inta wax hore u bixisay waxa ay bixiyeen wax ka khayr badan oo ka baraka badan oo nusqaan lahayn rabbi ha ugu soo bedelo inta Ilaahay subhanahu qaadirka dhiman ee masaajidka xaqiisa ka dhiman ee hadda shaqada u taagan tahay ee meesha uu maraya ka dhimanne dad kale oo muxsiniin oo ahlu khayr ah Ilaahay ka rajayn inuu nasoo waafajiye kuwa kale oo muxsiniin oo ahlu khayr oo ahlu diin oo Ilaahay jecel yahay oo saalixiin ah Allah nasoo waafajiyo waxaan insha Allah taala leenahay kuwa horena Ilaahay subhanahu qaadirka thawaabkoodii xasanaadkooda Allah ziyaadiyo culayska iyo dhibaatada iyo shidaayada adduunyada taalana Allah ka ilaaliyo waxay baxsadeenna adduunyadooda Allah ku ilaaliyo aakhiradoodan Allah ku xifdiyo inta dambana Ilaahay idinkii dad kale oo ahlu khayr oo saalixiin oo muxsiniin ah Allah nasoo waafajiyo maanin daa'ina waxaan Ilaahay ka baryaynaa dad saalixiin oo ahlu khayr inuu Ilaahay noo keeno masaajidka noo dhameystiro waay dadka hadii cid kale ma doonina anage qof saalix oo muxsin ah oo Ilaahay ka raadi yahay maalkiisana xalaal yahay beedka Ilaahayna dhameystirkiisa ka qayb qaata Ilaahay hana soo waafajiyo intaasaan insha Allah ku soo gabagabeynaya wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Alaykum assalam.